haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku daran yahay fadlan ha fiirso. sheekadan waxay ku dhacday wiil magaciisa la yiraahdo Subeer hadda wuxuu jiraa 30 sano, laakiin sheekadan markii ay ku dhaceysay wuxuu jiray 10 ilaa 12 sano. Subeer wuxuu la noolaa aabiis iyo hooyadiis dalka Jarmalka ku noolaayeen. Subeer hooyadiis waxay ahayd psychologist, aabiisna wuxuu ahaa engineer. Subeer markii uu jiray da'da 12 ilaa 10 intuu u dhaxayso wuxuu dalxiis u soo aaday tuulo ay ku noolaayeen adeerkiis iyo caruur oo dhalay. Subeer aad iyo aad ayuu ugu faraxsanaa in uu imaado tuulada, sababtoo ah wuxuu jeclaa in uu markasta la ciyaaro in adeeradiis. Subeer adeerkiis wuxuu dhalay wiil iyo gabar oo mataana ah. wiilkaas iyo gabartaasna Subeer aad ayay u jeclaayeen, markastana way la ciyaari jireen. habeenkii markii la gaaray, Subeer iyo family-giis waxay isku imaadeen miiska cashada. qof kastana wuu casheeyay, kadibna qof kasta sariirtiisa ayuu tagay wayna wada seexdeen dhammaantood. laakiin Subeer wuu soo jeeday. kadib Subeer wuxuu fiiriyay walaashiis iyo walaalkiis inay seexdeen iyo in kale. wuxuu arkay in labadoodaba ay seexdeen. asiga wuxuu damcay inuu talaagada imaado, kadibna uu kala soo baxo biyo si uu u cabo. Subeer meesha waxaa taagnaayeen labadiis adeer, meesha ayayna ku sheekaysanayeen. Subeer labadaas adeer aabiis ayay la dhasheen, walaalo ayayna ahaayeen, wayna isla sheekaysanayeen, sidoo kalena asiga ayay soo fiiriyeen. Subeer isla markii wuxuu dareemay arrinka in uusan caadi ahayn, sababtoo ah wuxuu arkay in albaabku lagu soo xiray 4 quful, qofna la iska ilaalinayo oo kale. Subeer asigoo yaaban wax laga baqayo ayuu biyo iska cabay, sariirtiisa ayuuna ku soo laabtay soo iskaga jiifto. laakiin muddo dheer kadib Subeer hurdo ay kasoo dhicweysay, mar labaad ayuuna soo kacay. wuxuuna ku soo kacay sababtoo ah wuxuu arkay gabadhii in adeertiis aad ooynayso oo hooyadeed sabayso. wuxuu la yaabanay sababta ay ku ooynayso Subeer. kadib albaabka ayuu shanqar ka maqlay. Subeer aad ayuu u naxay, sababtoo ah wuxuu maqlay qeylada adeeradiis iyo iyaga oo qof dilaya oo kale. aad ayuu u cabsaday. orod iyo shanqar inuu maqlay. cabsidii ayaa ku laba jibaarmatay. kadib adeerkiis ayaa soo galay albaabka, wuxuuna dhahay waa caafimaad qabtiin soo ma. wuu dhola cadeeyay, kadibna wuxuu dhahay daaqadaha iyo albaabka iyaana la furin wax kastoo dhaco. Subeer isla markii wuu dareemay in wax laga baqayo, waxna la iska ilaalinayo, laakiin waxaas waxay yihiin ma ogeen. kadib Subeer wuxuu ku dhagay eedadiis garabkeeda, aad ayuu u baqay. kadib Subeer hal mar ayuu wuxuu maqlay qayli yey qaylinayso kale. Subeerna waxay ahayd markii ugu horeysay uu maqlay qaylida yeyda. sidoo kale mar labaad ayuu wuxuu maqlay xabad. kadibna waxaa qaylisay gabadhii in adeertiis ahayd. kadib waxaa imaaday Subeer adeerkiisa labaad asigoo qoray haysto. kadib baalkii daaqadii wuu ka dhaqaaqay. kadib Subeer iyo family-giisa dhammaantood waxay jiifteen jikada. siday jikada u jiifeen waxaa ku bariyay subaxii. Subeer asiga kaligiis ayaa soo kacay, banaanka ayuuna u soo baxay. wuxuuna doonayay inuu ogaado xalay wixii la joogay ama wixii soo weeraray. wuxuu ku arkay saamaha yeyda. sidoo kalena wuxuu ogaaday yeyda inay soo garaacday albaabka, cidiyaheedana ay ka muuqdaan. albaabka uu jiifay. adeerkiis ayuuna u sheegay. kadib xalay ayaa waxaa loo sheegay in la buriyay yeydii.